magacaygu waa Samiir Nuurdiin Nazaar 23 jir ahay waxaan ka imaaday dalka Norway soo barbaaray haddana waxaan ka tirsanaa ciidanka booliiska Soomaaliyeed waliya waa jeclaan ciidanka inaan ku biiro oo kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal meel baa joogtaan halkaani waa Cabdullaahi Yar Official hadal hayntii ugu dambeysay ee baraha bulshada tan ilaa maanta ayaan idin hadayaa fadlan hadda channelka ku cusub tahay subscribe inoo dhe like inoo saar siina share gareysay muuqaalka meel fog u gaaro aanu ku bilaanay gabadha lagu magacaabo Samira Nasir oo horaana ahayd qurbajoog ka mid ah Soomaalida qurbaha ku nool balse ku soo barbaartay qurbaha waxna ku soo baratay ayaa habeennimadii xalay ahayd waxa ay qabsatay barta bulshada ay ku kulantay ee Facebook oo si aad loo wareejinayay gabadhan Samira Nasir oo ah gabar mardhow loo magacaabay taliska degmada Shibis ayaa hornaantii tani markay timid magaalada Muqdisho waxay ahayd askariyad isla markaana waxa laga dhigay sarkaal isla markaana waxa loo dhiibay qaybta taliska degmada Shibis waxa soo ifbaxay dadyo fara badan oo markaasi sheegayay in saldhigga Shibis lagu xiro taasi oo xalay wareegaysay meel kasta oo aad saa u fiiriso ee barta Facebook hadda waa kuma shakhsiyadahan gabadhan la yiraahdo Samira Nasir ee haddana laga dhigay sarkaalad ka talisa degmada Shibis ugu horreyn waxa ay u mahadcelisay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayadoona dhammaan ummadda Soomaaliyeed mahad ballaaran u jeedisay waxaana sheegtay in dadka ku nool degmada Shibis ay la shaqeeyaan waxaan ka imaaday dalka Norway soo barbaaray haddana waxaan ka tirsanaa ciidanka booliiska Soomaaliyeed waliya waa jeclaan ciidanka inaan ku biiro oo ciidan noqdo qof askari ah oo shaqeysa markaas bariis wato waagaan yaraa si nabad iyo baraare ugu noolaadaan haddaba gabadhani ayaa waxa ay noqonaysaa gabdhaha ka mid ah kuwa booliiska tii ugu horreysay oo degmo talis looga dhigo taasi oo markii loo eego saami qaybsiga Soomaaliya wax u qaybsatana ka soo jeeda maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya si kastaba ha ahaatee waxaa soo badanayay ganacsatada iyo wiilasha dhalinyarada iyo dadyoga kala duwan ee doonaya xogta gabadhaasi inay ogaadaan balse dadka qaar ma aysan ogeyn gabadhani ayaa gabar markaa marwa isla markaana haysata caruur korsata markaasna garatay in dalkeeda ay ugu shaqeyso qaab askariyad si kastaba ha ahaatee lama oga shaqadeeda iyo waxa ay qaban doonto iyadoo howlo fara badan ay horyaalaan kuna soo aaday magacaabideeda xilli dalka uu yeeshay madaxweyne cusub haddaba muuqaalkani haddii aad aragto daawade fadlan qaybta hoose ee commentiga fikirkaaga iyo araahdaada iyo dhiirigelin waxa aad noogu talagashay halka inoogu soo qor subscribe inoo dheh channelkeena si hadda aan meel fog u gaarno waadna ku mahadsantahay daawashada muuqaalkeena.